maanta oo taariikh 8 bisha 11aad 2024 waxaan meeshaan ka sheegaynaa in aan u sheegaynay reer Mandera East shantii ward oo ka kooban tahay Mandera East in aroosyadii aan dhisaynay oo December kasta insha Allah aan dhisaynay sanadkii horena aan dhisnay in aan hadda application-ka aan u fasaxayna dadweynaha inay soo apply gareeyaan oo application soo qortaan xafiiska constituency office Mandera East ay u soo qortaan ayaan ugu sheegaynaa dadweynaha insha Allah shuruudiyaal ayaa jira shuruudiyaalkaasna way badan yihiin waxa kamid ah qofka in aad guur hadda aad guur cid kale aad lahayn oo qof maartay hadda guur laan danta ay u diiday xoolo laan ay u diiday waa inuu ahaadaa qofka waa inuu qof guurka ku ciyaaro oo gabdhaha ku ciyaaro oo gabdhaha iska furfuro waa inuu ahayn baaritaan xoog leh ayaan ku qabanaynaa qofka waa inuu maartay xoolo laan iyo maartay lacag laan wax uu ku guursado guurka uu lahayn qofka waa inuu maartay qof muqaddaraadka iyo waxyaalaha noocaan ah dadka cuno oo maartay waa inuu ahayn waa in qofka xaaskiisa dhaqan kara oo gurigiisa dhaqan kara oo qof responsible leh qof oo maartay gabar lagu hadlayn karo waa inuu ahaada kullay anaga rag un baa badana saan ogsanahay dhaqankeena Soomaalida rag un baa badana baaritaan lagu sameeyaa laakiin gabdhiina waa dhici kartaa inay nin la imaadaan waa dhici kartaa waa arrin ay u furan tahay waa gabar haddii ay imaado ninkeeda gacanta ayadoo wadata ay dhahdo ninkaanaan rabaa baaritaan lagu sameynaa odayaalkii ayaa maartay ayaa waa la dabagalayaa haddii dad isu qalmo oo sax ay noqdaan waalidiintii wixii la hele ayadana maartay kama marna meesha midda kale qofku waa inuu ka imaadaa shuruudiyaalku waa inuu Mandera East ka imaadaa sababteeda kama dhigi karno guur Mandera County dhamaala amaba ka baxsan haddii aan ka dhigna dadkii kuma filnaanaysa taasoo maartay ay keenaysa qarashka ay u baahan tahay iyo xoolaha ay u baahan tahay darteed qofka waa qof Ilaahay ka cabsana inuu yahay waa qof salaadiisa tukado inuu yahay qofka waa in qof guurka ku ciyaari jiray oo maartay gabdho badan soo furi waa inuu noqonin marka waxaan rabaa insha Allah application-ku wuxuu furmayaa Isniinta taariikh 11 bishaan hadda aan ku jirno oo bishii 11aad 2024 ilaa ay waxay socon doontaa taariikh 25 bishaan hadda aan ku jirno oo bishii 11aad 2024 waxaan leeyahay oo ugu baaqaya dadkayda qiimaha badan inay application-ka soo qortaan waa la miisaami doonaa waa la baari doonaa committee-da ayaa maartay ayaa qofka qaraabadii meesha uu degnaa dib baa loo gali doonaa haddii qof oo maartay shuruudiyaalka kaamil uu yahay waan qaadanaynaa haddana dadkii lama wada qaadan kara dad badan application soo qoran doona waan ognahay 25 ayaan kala baxaynaa hadduu Ilaahay nafta nagu sim 25ta ayaan sanadkan u sameeynaynaa aroosyadii shay kasta oo guri looga baahnaay oo aroos aad u baahnaay ka bilaabata dharka gabadha ninka dharkiisa kijika ugu yara inaan u wada gadna gurigii aan u kaamilna maacuuntiisi kuraasti wax walba insha Allah arintaas ayaan sameeynaynaa Ilaahay aan mahadle sanadka hor waan qabanay dadka iidaa hadda badana waxa la sheegay inay caruur leeyihiin caruurtii ay u joogto ay degan yihiin wax dhib oo ka jira ay jirin marka insha Allah tan waan ku guuleysan doonaa haddii Ilaahay nafta nagu sima waxaan u sheegaa dadka inay application ku qortaan waqtiga aad ku gaabanin 2 week oo kaamil waa 2 week waqti badan waaye dadkana kulley waxay ka imaanayaan shanta ward oo maartay Mandera East ay ka kooban tahay application-ka la soo qorto qofka waa inuu gabar haystaa aniga gabadh ugu doonayn shuruudiyaalka ka mid tahay qofka gabadha asaga la imaanaya sababteeda anaga haddii aan dhahno anaga gabdhii ku doonayna ma suurtagalays marka insha Allah waxaan rabnaa in laga faa'iideysto arrintan arrin muhiim ah waaye waa arrin diiniyan waa arrin Ilaahay weyna waxda qofka diintiis waxa la dhahay guurka waa diinta nuskeed waay wax sahlan ma aha wax fudud ma aha ha laga faa'iideysta marka ay hadhow dam waqtiga nagu gaabtay ay dhicin waqtiga la xiray application-ka ka damba lama qaadi doono application marka saadaad ogaanaysaan waana mahadsantiin khayr Allah insi Ilaahay weyna waxda waxaan ka baryaynaa mid khayr qaba oo barakaysan oo caafimaad iyo cibaado iyo cimri dheer leh ummadeen lagu khayra lagu faa'iida Ilaahayna afis aan ugu helna inuu Ilaahay ka dhig. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.